cabdiraxmaan cabdishakuur warsame tusaale lagu tilmaansado halganka hal adayga hanka sare iyo himilada hoggaamineed ee ku hubaysan aragtida tolmoon ogaalka tagtada eegista taaganta iyo odoroska timaadada 30 sano oo dagaal daalaadhacya dimuqraadiyad taagtaagsi iyo tartiib ku socotay waa inta uu leeyahay cimriga dhaxalka dawladnimo ee hadda ee Soomaaliya ay wajahayso muddadaas waxaa la saarnaa gurgurshaa geedi ah oo aad u gaabinayay kacaakuf iyo kolba meel fadhiisi ayaa ahayd caqabadda abuuraysay baahida ugu weyn ee mar walba loo qabay in la helo hoggaan hore u socda ee dhaanka daahay ee weli la dhowrayo dhaqsameer u geeya colka warafah lagu dayanaa waxay ahayd rajada madhamaatada ahayd ee dadku ay ka qabeen in bartilmaameedka la beegsanayo goor aan dheerayn la gaadho waxay taasi bulshada iyo dawladnimadeedaba ka dhigtay nin bukow boqoli ku talisay oo waxaa mar iyo marar badanba lagu kadsoomay been aan jirin oo bustayaal ballanqaadyo ah soo huwatay dadka shacabka ah oo hamuun weyn u qabay hoggaamiye toosan ay hubsiimo la'aan ugu hodmeen kuwaasi oo giraantii xagga hiigsiga u gadgadoomaysay gadaal u soo celiyey doorashooyinku waa fursadaha dib u curashada rajooyinka horumarineed ee bulshada waa bartilmaameedka beratan muddo soo socday iyo barbilowga mid cusub hoggaanka xilalka loo doortay iyo kuwa mucaaradka ah ee ku loolamaya saaxadda siyaasadda waa meesha ay bulshadu ugu kala gar soorto oo mid walba waxa uu mutaystay ay ku abaalmariso waa madasha iyo masraxa doorashooyinka guud ee lagu helo kalsoonida dadka iyo dawladnimadaba lagu horkaco sidaas daraaddeed doorashada sannadkan 2021 ka dhacaysa Soomaaliya waxay xiise gaar ah u leedahay ummadda Soomaaliyeed oo dhowrkii sane ee la soo dhaafay soo martay qalalaasa dhanka siyaasadda ah oo qaarkood ugu ay ahaayeen waxaana la kala dooranayaa hagaasinta nidaamka dawladeed oo halkeedii ka sii socota ama hagaajintiisa oo loo hawoodo hubaal waxa ah in dadka iyo dalkuba ay tan dambe u haraadan yihiin waana sababta hoggaamiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hadda loogu arko dooqa koowaad ee shacabka isbeddeldoonka ah ee hilaadinaya dawladnimo dadka iyo dalkaba ugu adeegta dawga uu dastuurku jeexay isweydiintu waxay tahay maxaa mudnaanta siiyey mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kasakow aqoonta iyo fahamka qotada dheer ee mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu leeyahay meertada siyaasadda iyo maaraynta juquraafi siyaasadeedka ku meegaaran waxaa lagu tixgeliyaa kaalintii hore iyo haddaba uu ku leeyahay mucaaradnimada ku qotonta toosinta iyo turxaanbixinta maamulka iyo milgaha dawladnimada oo haddii lagu sii eego mariseejinteeda ee ay ku hayaan madaxda xilka loo dhiibay aanay hamba ka hadhi doonin waxaa si gaara u xusid mudan halgankii uu mudane cabdiraxmaan cabdishakuur soo maray 4 sane ee la soo dhaafay markaas oo sida dad badan ay aaminsan yihiin ahayd mid ka mid a wakhtiyadii ugu adkaa ee mucaarad lagu noqdo dawlad Soomaaliyeed oo madaxdeedu ay awooddii sharcigu siiyey u adeegsanayeen afqabashada cid walba oo iyaga ka duwan dhanka fikirka ka go'naanshihiisa isbeddeldoonnimo oo kaashanaysa karti iyo karaan uu ugu adkaysto kulka iyo kadeedka wakhtiga ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxay u suuro gelisay in aanu u liicin yoolkiisa wax toosineedna uga leexan weerar waabis iyo warxumo tashiil iswatay oo awood milatari iyo itaal maaliyadeed oo uu dalku lahaa lagu bixiyey si loo aamusiyo codka dheer ee xaqsheegga u taagnaa xilli ay inta badan dadkii xayndaabka siyaasadeed ku jiray ay u qaybsameen qaar jiilaalka adag u jabay iyo qaar juuqda gabay natiijada ka dhalatay halgankaasi waxay noqotay in qof walba oo cabdiraxmaan maqlaa ama arkaa uu xusuusto dhammaan sifooyinka iyo sumadaha adkaysiga indheergaradnimada iyo aftahamada ee uu adeegista ummadda ku qotonta intii halganka uu ku jira cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu la kulmay tallaabooyin qallafsan oo ka dhana xorriyadihiisa dhaqdhaqaaqa safarrada qabashada kulamo waaweyn iyo sidoo kale weerarro toosa taasi oo dhammaantoodba salka ku haysay dhaqdhaqaaqiisa dhanka siyaasadda haddii isbeddelka maamul ee doorashada hadda ka dhacaysa Soomaaliya laga jeedaalinayo inuu yahay toosinta turaanturooyinka dastuurka iyo dawladnimada soo gaadhay waxa uu tartanku u dhaxeeyaa cid mas'uuliyaddii loo igmaday marin habaabisay iyo mid looga maagay oo loo muquuniyo mowqifka iyo mabda'a hagaagsan ee dalka iyo dadka u damqanaya go'aankan waxaa leh shacabka iyo wakiiladooda iyaga ayaana u kala gar qaadi doona damaca madhan ee xildoonnimada iyo dadaalka uu damiirku hagayo ee xaldoonka ah haddii midka dambe fursad la siiyana mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ku kalsoon yahay wixii ay bulshadiisa hore ugu baratay oo ahaa wacyi iyo wax sheeg dawlad aqoonnimo ah xorriyadoon
iyo daldhisba ku saabsanaa. mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu u taagan yahay tartanka doorashada madaxtinimada oo sidii horeba loo arki jiray hal goob ay isugu soo ururi jireen inta xildoonka ah, kuwaas oo xoog iyo xoolaba wixii ay heli karaan ku bixiya dadaalkaasi si ay kursiga ugu sarreeya ee Soomaaliya looga arrimiyo ugu fadhiistaan, balse si ka duwan xildoonayaasha kale. mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu shaqaynayay iyadoo aanay fursad doorasho iyo tartan furanba soo muuqanin, waxaana uu u badheedhay una babacdhigay baajinta iskuday kasta oo majaraha toosan ee dawladnimada lagu weecinayo. waxa uu shir iyo shaashadba ka sheegay goldololooyinka jira, isagoo kaashanaya fogaan arkid uu fahamka siyaasadda kula falgalay. marka laga reebo dulmarka iyo korka xaadiska xaaladaha guud ee qof walbaaba uu garan karo, ma badna dadka qaabayn kara oo qodobayn kara waxa ka qaldan dawladnimada hadda jirta. hase yeeshee mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa ay dadku ku barteen iftiiminta xaaladaha taagan iyo odoroska timaadada, waxaana uu aaminsan yahay in godadka waxqabadka ee hadda bannaan ay gufaynta uga baahan yihiin kuwan soo socda. saludhigada siyaasad xasilan oo isfaham iyo dib u heshiisiin ku dhisan, adkaynta amniga iyo garsoorka, kobcinta dhaqaalaha iyo tayeynta adeegga dawladeed, hirgelinta hannaan dimuqraadi ah iyo dawlad wanaag, ka midho dhalinta wadahadallada Somalilan iyo Soomaaliya, meelmarinta siyaasad dibadeed oo ku dhisan dan qaran iyo cadaawad la'aan. dhammaan ujeeddooyinkii qarannimada iyo wax wada lahaanshaha ummadda uu muddada gulufka iyo gobollada dheer ugu soo maray waxay intooda badan hadda noqdeen kuwo lala fahmay oo kuwii shalay kaga soo hor jeeday ku colaadiyey amaba ku cidleeyey iyo intii ku caawisayba ay maanta hoosta ka xariiqeen in is-ogol, isla guddoon, wadajir iyo wadatashi mooye aanay jirin waddo kale oo u furan wadista geediga dawladnimada Soomaaliya. intaasi oo dhanna waa halkudhegyadii iyo hiraalkii siyaasadeed ee mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu hore ula keliyoobay. sidaas darteed rajadu waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed aanu mar dambe lumin doonin fursadda uu ku dooranayo hoggaan hadal iyo hawlba hore loo bartay intii mar kale gacanta la gashan lahaa godad hore oo good uu ku qaniinay shacabka. ku dooro cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dadaal, dood iyo doonis aanu daahsaarnayn oo lagu hiigsanayo hirgelinta dastuurka, hagaajinta dawladnimada iyo hoggaaminta toosan ee dadka iyo dalka Soomaaliya.